waxa ay aragtay mid ka mid ah macallimiinta markii loo soo wareejiyay dugsiga hoose in ardayda fasalka badana ay isdagaalaan uuna jacayl ka dhaxaynin dhexdooda. waxa ayna u sheegtay muhiimadda ay leedahay qalbi furnaanta iyo qalbiga nadiifka ah iyo qofka leh qalbiga wanaagsan aysan ku jirin qalbigiisa xumaan iyo xaasinimo uu ku guuleysanayo jacaylka Alle iyo kan dadka. markii ay aragtay in badankoodu aysan fahmin ujeedkeeda, waxa ay go'aansatay in ardayda ay si kale wax u fahansiiso. waxa ayna ka dalbatay in arday kasta uu u keeno weel ay ku jiraan dhowr xabo bardha ah uuna ku qoro mid kasta oo ka mid ah bardhada magaca qofka uu neceb yahay. arday kasta waxa uu keenay bardhadii, waxa uuna ku qoray magaca qofka uu neceb yahay. qaarkood waxa ay keeneen 2 xabo, qaarna 3 xabo, qaarka kale 5 xabo. markaas waxa ay u sheegtay macallimadii in shuruudda ciyaarta ay ka mid tahay in arday kasta uu u qaato bardhada meel kasta uu aadayo muddo 1 isbuuc ah. maalmo kadib ardaydii waxa ay u dulqaadan waayeen urka bardhada iyo culeyskeeda. markii ay ka soo wareegatay 1 isbuuc, waa ay farxeen ardaydii maxaa yeelay ciyaartii waa ay dhamaatay. markii ay weydiisay macallimadii dareenkooda iyo xaalkoodii intii ay wadeen weelkii bardhada ahaa muddadii 1 isbuuc ahayd, waxa ay bilaabeen ardaydii in ay ka sheegtaan dhib iyo mushkiladii qabsatay intii ay wadeen weelkii cuslaa ay shiilayay. waxa ay bilowday macallimadii inay u sharaxdo ujeedkii ay ka lahayd ciyaartan. waxa ayna ku tiri waa isla sidaan oo kale waxa uu dareemayo qalbigaaga markii aad qof ugu qaadid nacayb iyo xasad. waxa ayna ka wasaqaynaysaa qalbigaaga wanaagsan. waxa ayna ka dhigaysaa in aad u qaadato meel kasta oo aad aadaysid, mana ka harayso. haddii aad u dulqaadan weyseen urka bardhada 1 isbuuc, marka maxaa u maleynaysaan waxa ku xambaarsan tihiin qulubtiina oo nacayb ah cumrigiina oo dhan. maalinkaas wixii ka dambeeyay ardaydii waxa ay noqdeen kuwa isjecel lehna qulub wanaagsan. fadlan muuqaalkan si share garay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan haddaa ka heshay muuqaalkan like saar saan u ogaano inta qof ee danaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah. taasina waxa ay noo horseedaysaa in aan sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad daawanaysid channelka Cabdixaliim Cali, fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono. fi amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.